madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigii hogaaminaya ee maalmaha u dambeeyay socdaalka ku jiray oo habeenkii xalay ahaa u hoyday magaalada Burco ayaa saakaaroodnimada u qaybiyay dadka naafada ah gaadiidka naafada. Gaadiidkani waa mid loogu talagalay dadka naafada ah isla markaana noocyadiisu ay kala duwanaayeen ayaa wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in gaadiidkan la siin doono dadka naafada ah. Allah ta'ala qof walba wax buu helaya. qof waliba wax buu helaya. عفري إن قاعد كوكوبية بقول يا صوت وصوص أسمع بقول يا صوت قاعد بقى كوكوبية ومد مشين له يكمل وتضع قيبسن أنت كلنا من بقول دولار بيهلس إن شاء الله تعالى ودفعتي لبعض مدحوينه وحوت هاجي دريال كدت كنافذة يدت كشدسن دريال كود ما أنت واحد لقيبي كمبيوتر لقيبي يدت كدجال على سكول كدجال لقيبي gudoomiyaha ururka naafada ee gobolka Togdheer oo halkaasi iyaduna ka hadashay ayaa ka warantay faa'iidada uu qalabkan u leeyahay dadkani. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waxa weeye dayr adag oo naafada haystay oo xukuumadihii hore ee Soomaaliland iyo dadka naafada u dhaxeeyay ayuu madaxweynuhu jebiyay. Waa guulkaas waxaan u sheegayaa dadka naafada ah gobol kastay joogaan iyo meel kastay joogaanba in waa cusub ugu bariyay. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in naafadu ay ka mid tahay bulshada isla markaana ay xukuumaddiisa xil weyn ka saaran yahay dadka naafada ah. waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. naafadu waa qayb bulshada aad iyo aad bulshada ka mid ah waa bulsho baahan waa qayb u baahan in la tixgeliyo oo baahiyooda iyo waxa u baahan yihiin xilbaa naga saaran haddaan dowladii nahay inaan dowlad iskuul iska saarno waan iska saarnaa waan fulinayna baaya sheegtana waxaanu ka fulin karno waan ka fulinayna. gabagabadiina dadkii naafada ayaa gebi ahaanba la guddoonsiiyey qalabkii loogu talagalay. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhagax dhigay saldhig cusub oo yeelan doonto magaalada Burco. intaasi kadibna waxay waftiga madaxweynuhu aanbarbixin dhinaca degmada Sheekh Shafiic Maxamed Ibrahim shabakada caalamiga ee Ictiraaf News magaalada Burco.